xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Togwajara mudane Cabdilaahi Xasan Samaale oo maanta waraysi khaas ah siinayay telefishinka caalamiga ee Som News ayaa waxa uu madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ku hambalyeeyay soo celinta haamaha shidaalka ee magaalada Berbera iyo security-ga madaarka Cigaal International Airport sidoo kale xogayaha hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu madaxweynaha qaranka ku hambalyeeyay go'aankiisanimada lahaa uu ka qaatay nabadayntii deegaanka Ceelafweyn ee dirirta ku martay labada beelood ee walaalaha ah xogayo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa kamid ah hadaladiisii oo hoggaan wadeenka ka yahay Muuse Biixi Cabdi intii ay jirtay ka madaxweynahan talaabooyinkii uu qaaday ee bulshadu mahadisay ayaan doonaya madaxweynaha inaan halkan hambalyo uga diro waan leeyahay madaxweyne waad ku mahadsan tahay ilaahayna ha kugu garab galo jazakallahu khayr واجبك قروح بدلت قلتي وحنا كميدا قدوك كواد وحويان هنانكي حبكي يا هنانكي ومدحوينه أمري باسمها الدولة دي نهدى جرته يقول إيه وسير كذا والدولة وأمري أو أساس وقدر أقون أساس وقدر وقعنتي سكوح شيء يا أو تي هرد هبلو كان يو أضي كان يا سلطان كان أنا أحين أو أقوم وكل ساس وقدر تاوان كل هذا بليني من حوالي الجمهورية جسواتكم أتصل طيب عنه وأنا طلابه كنت يشام ضم عنه طلبات وحالة دي نبر كون نقطي قرني من الجمهورية الصوماليلاند نبت كلية ده كد عضي عيلفوين لبدي بيره ولا لها قلتي إرجدي وقدر مدحوينه وحشي مجيء ميزان كرهي رجع عداجة أي كتيران عندكوا يلا أن الأورانيين كو يلا أن الأورانيين هالدوركي ويعرجي خبرة أولها حالها نوع عسى أو بلشة الدولة دبر وكحولي أو جروذين كيهين أو هو جميع يوم مدحوينه كحجاج الجمهورية الصومالية عبد الرحمن إسماعيل سيرعي يوم وزير كأريمها الجده جمهورية الصوماليلاند محمد كاهن أحمد قلت لاسي هي حالة دي يدا هاي أول لقى جاري كل مردالة مدة الصوماليلاند فرحت إياه خيرين أي أوجد بشيء وأنا تكون مهتمين بعملنا طلابة أنا مدحوينه وكقاضي طلابة جيسين ماله علمي يعقون kalsoonina ku dhisan buu ka qaatay baan leh aad buu ugu mahadsanyahay talaabada saddexaad waa xaweeyaan la soo noqoshadii hantida dawladda ee haamaha shidaalka magaalada Berbera iyo security-ga airport-da qaranka taasina waa laba dhuumood oo halbowle ah bay haayeen mid waa mid dhuuntii ganacsiga oo barigii dhaweyd waa taad ogeydeen shidaalka hal mar baa wax gawaadhidii wax istaaga iyo wax ka baqa inuu shidaal qaato ayay noqotay taasina waa wax ganacsiga iyo tasiilaadka iyo dhaqdhaqaaqa bulshada waa dhuun muhiim ah waana wax loo baahan yahay talaabadeedii halkii looga baahnaa ayay ku dhacday baan leh oo madaxweynaha Ilaahay waafajiyay baan leh security-ga noqotay security-guna waa halbowle haddii riboodadeenna dee wixii degayay iyo wixii ka dhufayaba meel dawladdu joogto in shicibna dhanka maamula waa wax aan isqabanayn dawlad iyo shicib xafiis wada fadhiya isma qabanayaan marka dawladdu ha maamusho madaaradii oo nabadgelyadoodina ha maamusho iyaduna waa tallaabo qaran baan leh waana ku mahadinaynaa baan leeyahay madaxweynuhu tallaabo qaran baad qaadan leedahay إن شاء الله تعالى برشوية الصومال لأنه وحنا لهاي وحي وناكسن ولا لسود وينه قرني مدينة دسيا مدحوينها وحي وصوب بالشديسة قفكم مسؤول كيشي من هدوم مسؤولي هاي لولا شيء سواها كسر تنحل بصارا هل كانوا فردنا حل بنصارا هذا اليوم معلومة حكوا فكرنا وناك قدر عبد الله تلفزيون كعالمي Som News دقمة Togwajara